نيا خضراء حاجي iyo waa kan xaajigi maaha aadu egtay sakatan ka qaadeen ma Soomaali baatay khadra silmo la helay iyo Yurub Kenya oo nin meel iska taagan la yiri xaajigi la soo bootay maya xaajigi ma hada shay ka saarin waa barnaamijkii Drama Show adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasha wada nooga helaan oo ku soo dhawaada barnaamijka Drama Show oo ka daawataan Soomaalida shidan barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa khadra silmo marba aad ogeyseen oo korka laga saarayay niman magaaladooda isku mushaaxaya la oranayay khadra hiblay guursatay khadra hiblaa dhoofinaya iyo fanaanadii kale Yurub Kenya oo iminka dhow aroosato Djibouti honeymoonka ama bishii malabka ku jirto Iglan Saalax ayaa gaadhay halkaasi oo snapkeedii ku qaqabata khadro waa taasaad u jeedin horta waxyaabo la sheegay oo horena ay u dhaceen oo khadra silma laga sheegay oo la yiri wasiir bay guursatay iyo fanaaniin wiilan abtigeeda ay guursatay iyo Kanada loo wadaa inay ka yara wareysatay ayaan rajeynayaa taas waxa marka xoogaa fani ila noqotay Yurub Kenya oo gabar iska afgaaban ba kaamirada lagu qabtay Yurub Kenya waa kaas marka England ayadu waxba hubsan bay waxay la soo booday xaajigi ma tiri xaajigi sakata kale la wareegay miyaadan u jeedin tiri mindhaha laadahay idhibe marka qosol bay ayaduna ku tuurata sidee warka u masaxday Yurub Kenya dabadeeda dambe inta batay ninkii gacanta ku dhigtay jiiday tiri sawad meesha waaba la isku fashilay waa tahay daawada intaas yar kaftana ay ahayd muhiimadu waa khadra silma iyo Yurub Kenya iyo dadka kale bal in yarayna la daawada السلام عليكم يورو محمد عبدي يورو كينيو خضرا السينما نايا خضرا dawaa ku sida qadra inaan salaantay ahayd waad nooga qaad sida muraayada isku eegaysan tan soo egtay waaya bal aan ku sii soconaya halka taagan xaajigi iyo waa kan xaajigi maaha Eglan oo saasa dhagiyooda qosol nooga jibisay Yurub waxay tiri xaajigi maahan inta waxay ka sii dambeeyay Yurub gadaal bay maraysaa waa gadaal bay martay ninkii jiiday waxay tiri barta la isku baahay kara meesha ammaan kuma sugno xaaladdu aad bay u xun tahay in la sii daawada xaajigi iyo waa kan xaajigi maaha Yurub xaajiga xagga iska wareegay waa kan ninkan meeshan iska taagan dusha iga saaran Yurub Kenya taagantaa yaana Facebook iyo social media la soo dhigin la dhin Yurub Kenya ninkeedii nin kala gordaha ay suran taagantaa ninkaygu gadaal buu ka wareegay taagantaa xaajiga xagga iska wareegay abwaan amabe aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta ay sameysay kula kulano waxa weeye fanaanka abwaanka Djibouti waxaan ku yiri halkaas heesaayo ereyada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo asxaabta dib baan iskaga soo noqon doonaa insha Allah abwaan waan soo joognaa soo hadee يرى لا يرادا يا هو انا عود بك يا يا سيدي ما يرى ابواك يسايا يا هو وانا ايغا يا يا مقاطي يرى لا يرادا يا هو انا عود بك يا سيدي ما يرى ابواك يسايا هو iyo أمين عمارية أويس قميص بابوتي عاد أنت صوحي إسكاه القدر يرونا سشاد برنامج كني درامي شو أيو إسكاه هاي داو ريال برنامج هو برنامج كفتنيان لقدين ريالتي وحصحة وحا run ah in ay qadra silmo iyo Yurub Kenya iyo fanaaniin kale way ka mid tahay fanaanadii kale Ugbaad Aragsan ay ku sugan yihiin magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti Ugbaad Aragsan iyadu xaajigeeda Djibouti buu joogaa fanaanadii kale oo Yurub Kenya xaajigeeda iyadu waxa uu joogaa dalka Djibouti waxba lagu arkay ilbaa ka baxday fanaaniintii oo dhan way isku gadiyeen Ugbaad Aragsan kulito
waa muwaadinada reer Jabuuti noqon kartaa maadaama ay ninka guursatay dalka Jabuuti musicianka ay guursatay qamar suugaanina halka ay isku macsalaamayeen qamar suugaan iyo nin kale la isku soo dhajino waa arkay sawiraan aad ugu qoslo ah kaasina laakiin halkan idin kula wadaagi kara maadaama xuquuqdu dhowran tahay daawadayaal waxaa kaloo jira in ay ugu badaragsan xafladii sanadka cusbeed ee ka qayb ka halkaasi oo telefishinka dalka Jabuuti laga soo daynayo halkaas iyadoo dad fara badan indhaheen xidigii geeska ka baxda arrinkaasi oo been iyo wasal iyo raatoon aan lahayn oo been yahay oo ugbad aragsan kama ay sabixin xidigaha geeska sida inagu maqaalaha ah laakiin waxay ahayd xasarad la abuurayay oo been laga abuurayay taasi oo bulshada laga rabay in laga gado oo fiis lagu raadinay dawdal wixii fanaaniinta oo sax ah waan idin soo gudbinaya taas ka saaxda waad igu haleynaysin inaan wixii xaqiiqa wixii kaftanana marmarka qaar aan idin kugu soo dhaxtaro sida fanaaniinta israftay oo kale waan idin soo day laakiin fanaaniinta markii laga been abuuranayo sharaftooda meel uga dhacay ama been kale weyn laga sheegayo xaqan ayaan idin kaga soo gudbin doonaayo ha u daymalaanin idinku wax moogaanina barnaamijka kan inaad daawataan drama show oo aad ku xirnaateen waa haddii aad xiisaysa fanka iyo dadka caanka ah celebrity-ga Soomaaliga wali ma aanu gudbin caalamka taasina halkaas ay ahaanaysaa qadar silmana been kala laga sheego iyadoo been hore ay jirtay ahaydin Canada loo wado Canada in loo wada de qofku waa wax xaq oo maaragtay oo gudihiisa wax sira weeyaan laakiin in ay guursatay kaasi fiican loo ogaan karo kan inay guursatay ninkaas waa wiil naabtigeeda oo Canada ka imaada haddana waxa la yiraahdaa Jabuuti wasiirkii arrimaha wasiirkii maaliyadda Jabuuti guursataasina waa been labadaas arrinba inay been tahay haddii aad doonaysaan runta cagma dhigaani baad ka helaysaan iyo drama show iyo Soomaalida shidan oo xaqiiqdu taagan fanaaniintana waa dad aynu asxaab iyo walaal iyo saaxiibaba nahay oo ma ahan wax caloosha in isugu qaadno xoogaa waa iska dhici kartaa yaa laakiinse hawshu isma saarna daawadayaal gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay bal horta intaynu barnaamijka soo gabagaben waxaa doonayaa in yaroo dee ciddi jacayl oo ku jira dee doonaysa muxibada iyo badaha jacaylka inay dhex jabacaan inaa in yaro qadar yaro muusiga iyo xoogaay miraha oo ay ku lamaansan yihiin laxan jacayl ku salaysan ciddii fahmaysa dee oo ku lamaansan yahay arrimo jacayl weeyaan waa Qadra Maxamed qoordaha maxay tiri nasriga siraad maye mahuraan sareediyo niyaduna samaata nabaadiina waa saxe nusqaan malaha caashaqo nasabkii aan sahansaday hee dee adaa ku sii daraya heesti dhameed baa ii sii gambisee heesaasna waxay ka mid tahay heesaha markaan moodka ku jira aan dhagaysto inkastay life u qaadayso haddana waxaan jecelahay inaad igula caweysaan oo bye bye danu idinku iraa subscribe saar naguna soo biir daawada nasriga sirada maye aruuraan sarado niyaduna samaata nasriga sirada maye aruuraan sarado niyaduna samaata nabadeeda waasada musqad malaasakado nabadeeda waasada musqad malaasakado nasabkiya saansaday waqtu kay sugayso nabadeeda waasada musqad malaasakado nabadeeda waasada musqad malaasakado nasabkiya saansaday waqtu kay sugayso naxariis ku soryeyn sadrigu ha nagaado nagaado ha nagaado nasiimo aan ku seexde nasiimo aan ku seexde nasiimo aan ku seexde nasiimo aan ku seexde naxariis ku soryeyn sadrigu ha nagaado nagaado ha nagaado nasiimo aan ku seexde nasiimo aan ku seexde nasiimo aan ku seexde nasiimo aan ku seexde
muddadii ay shaqaynaysay Soomaalida Shidan waxaa ku xirmay dad kor u dhaafaya 100,000 oo qof daawade ka mid noqo dadkaasi oo nagu soo biiro subscribe saar Soomaalida Shidan